daroogiste maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga daroogiste maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga qofka isticmaala daroogada gaar ahaan kiniiniga qofka kiniiniga maalin walba isticmaala sidan khaliilka okay daroogiste isku day hay soo fiirnay mataqaanid ana kaaga jawaabay daroogiste waxaa la dhahaa luqadda ingiliishiga gaar ahaan kiniiniga qofka badsanayo mar walba oo kiniiniga isticmaalayo druggy ayaa loo yaqaanaa daroogiste waxaa loo yaqaanaa druggy gaar ahaan kiniiniga waayaa saaxiibul kiniini luqadda ingiliish waxaa loo yaqaanaa druggy qofkii aad taqaanid oo daroogo isticmaala gaar ahaan kiniiniga waxaa leedahay druggy u qor druggy ugu soo qor okay xashiish maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga xashiish waa kada oo la cabo xashiishka dad qaar tuwaakay u yaqaanaan mataqaanid xashiish luqadda ingiliishiga jaamacadna waa dhamays anaa kuu sheegay xashiish luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa marijuana 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 ayaa loo yaqaanaa xashiish waa xashiishka tuwaakada la cabo oo sigaarka oo kale ah marijuana okay taabuu ayaa la iska rabaa taabuuga oo xitaa ardada isticmaal baryahan taabuu isku day ciyaartooyda taa waa isticmaalaan gabdhaha isticmaala weliba baryahan taabuu ingiliishkiisa laga rabaa okay taabuu ingiliishkiisa waxaa loo yaqaanaa chewing tobacco chewing tobacco ayaa loo yaqaanaa chewing tobacco chewing tobacco shiishad maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga shiishada la cabo shiishadii cawaaye ashraf xariifka lahay hi guys waxaa fiican waxaa rajeynaa inaa fiicantihiin shiishadaas maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga luqad waa lamey meeshaan shiishad waxaa loo yaqaanaa huuka shiishad luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa huuka huuka okay hadda waxaan kaa rabaa marka qaadka la cuno ama jaad qaad luqadda ingiliishiga maxaa u dhahaa comment ku soo qor qofkii ugu horeeyana abaalmarinaa la siinaa